bishii 8aad 2009 naxariistarada Nasra ayaa waxaa kasbadeen 57 qof oo dumar iyo caruur isugu jira una nafwaayay ficilka gabadha ay geysatay taasoo ka dhigtay faldambiyeedkii abid ugu weynaa oo gala taariikhda wadankaas waana waxa Nasra ka dhigay qofka loogu necib yahay wadankan ay ku noolayd waana waxa ku qasbay familada dadka halkaas ku dhintay inay maxkamadda ka codsadaan in Nasra lagu qaado xukunka ugu sareeya oo qof dambigan oo kala galay ama mid lamida geesta lagu qaado haddaba dambi noocay ah ayay geysatay Nasra maxayse ahayd ulajeedkeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا فاميلي أقوان كورسي ميديا مقعيقو أحمد برنامج كان وحون نقوم دونا برنامج تحنا on وقتي والبيدين سو ديارين دونا هدو إلهي إراد فضلا ديغانا هوبسينا سبسكرايب كسارتي قنبلال كان فرسي أدو لسعوتو برنامج دانا كالي يقوكو حيسا قلين دونا دابا إنو سيقودو قلنا برنامج كان ما انتو وحينو إيجي دونا دنبيغا نصر إيجي ستي أو قلقلي ودنكا إيكو نولايد كنا بيري قلقل يعرسي بدن كنا قصبي هير إي ودن بدلان خيب كميد sharciga u yaali jiray waxaynu barnaamijkan ku dul istaagi doonaa wadan yar oo ku yaala dhaxbartamaha Iraq iyo Sacuudi Carabiya waana wadanka Kuwait oo ah midka ay ka dhacday dibkan aan maanta idin la wadaagi doono hadaba magaalada oo ah caasimada oo magaceeda la dhaho Kuwait City waxaan ugu tagaynaa qofka u ah hal doorka videogeena maanta taasina waa gabarta 23 jirka ah oo loogu magac daro Nasra Yusuf Al-Anazi Nasra waxay halkaas kula nooleed ninkeeda oo ah 36 jir iyo labadeeda cunug inkastoo nasiib darro wax badan laga ogeyn Nasra ciyaalnimadeedii waxay sheegayaan dadka ku dhadhow inay ahayd qof aan la qiyaasi karin oo fudfudeed iyo dabeecad kulul u dhalatay taasoo ahaan doonta waxaadan la yaabi doonin marka aad dhamaysato videogan balse markaan meel iska dhigno waxay Nasra ahaan jirtay markay yareed hadda Nasra iyo ninkeeda waxay ku noolaayeen nolol ku salaysan farxad iyo kala dambeyn sida caadada u ah dhammaan dadka familada ah intooda badan ayaa Nasra waxay ahayd guri joog halka odaygeedu ka soo shaqeyn jiray banaanka oo qutulyoonka soo dhicin jiray ama soo raadin jiray balse markaan eegno Nasra dhankeeda waxa jiray ayaan darro xoogan maxaa yeelay waxay Nasra guriga ku haysay 2 ilmo oo xanuunsan kuwaasoo u baahnaa caawimaad dheeri ah taasoo keentay in Nasra culays badan soo food saaray kuna riday stress joogto ah waqti yar gudaheeda ayaa waxaad ka dareemaysaa stresska iyo dhibaatada haysata Nasra taasoo keentay inay dagaal joogto ah iyo buuq joogto ah iyadii ninkeeda mar walba soo kala dhaxgalaan arrintan iyada ah ayaa ninkii wuxuu ku go'aansaday inuu xaas labaad guursado nasiib darrase ma ahan dambi ama mid ka soo horjeeda diinta inuu ninku guursado 2 ilaa 4 xaas sidan ayaana ku dhalisay inuu Nasra ninkeeda raasada xaas haddaba sidaan dareemi karno tani iyada ma ahayn mid Nasra ogolaan karto ama raali ka tahay waxay Nasra joogtay gurigeeda iyadoo ka taxadaraysa ilmahooda halka ninkeeda uu ku jiro baadidoon xaas labaad raaditaan iyo baadidoon dheer kadib ninkii wuxuu helay xaas uu ku qanacsan yahay waxaana la qorsheeyay xilliga iyo halka uu guurka ka dhici doono balse nasiib darro Nasra waxay aad uga muraara dilacsanayd waxa horteeda ka dhacaya iyadoo cadeynaysa waxa ninkeeda ku dhaliyay inuu kala raadsaday inay tahay caruurteeda ku dhashay xanuunka oo u baahan kuleynta dheeriga ah Nasra waxay la aamusnayd maseer ciil iyo xumaanta intan la eg oo familka iyo qaraabada iyo asxaabtaba ay raali ka wada noqdeen inkastoo waxaan oo dhan Nasra ka dhex guuxayay waxay dadka u muujisay inay waxba qabin laakiin iyadu hoosta uga xariiqan tahay inay aarsan doonto siiba ka aarsan doonto ninkeeda wuxuu ku sameeyay ama u geystay hadiiba mar Nasra aarsi ku jiro waxay hoosta ka xariiqatay inay sugi doonto ilaa heer aarsigeedu noqon karo mid dadka dhan wada ogaadaan ama la hadal haya in muddo ah haddaba 15 August waxay ahayd maalin waxna aysan ka duwanayn maalmaha kale balse waxay ahayd maalintii Zayid Nasra ninkeeda ay ahayd arooskiisa waxa uu go'aansaday inuu arooska ka dhaco magaalada Al-Jahra oo xoogaa u jirto Kuwait City ahaydna halka Nasra iyo caruurteeda ay degan yihiin haddaba si aad u fahanto sida intan qof ay ugu nafwaayay karaan hal meel waa inaad ogaato ama fahanto shuruudaha howlalka lagu kulmo ama aroosyada lagu dhigto u yaala howlalku waa inay leeyihiin albaaba badan sida mid laga soo galo iyo mid laga bixi karo si haddii dib u dhaco dadku ay oga bixi karaan labada albaab haddaba nasiib darro howlka maalinkan arooska lagu dhigayay ayaa ahaa mid hal albaab kaliya qabo oo dadku midkaas ka soo galayeen kana baxayeen markuu aroosku bilaawmay oo uu meel dhexe marayo ayaa Nasra oo wali ku taagan go'aanka
go'aankeedii ahaa in ay ninkeeda ka aarsato ninka u geystay xumaanta intan la eg ayay timid hoolkii iyadoo diyaarsan oo maalinka horaadkiisii qorshaysatay sida ay oga aarsan lahayd. waxay Nasra bilowday in ay ku bilbisho gaas u diyaarsanaa iyadoo hoolka banaankiisa oo dhan qabadsiisay dab iyadoo uladan leh inay ku dhamaadaan ninka, naagtiisa iyo waxa meesha ku jiro idilba. nasiib darrase dadka meesha ku jira ayaan waxba dareemin ilaa dabkii uu isqabsado. marka ay dareemeen ayay ahayd xilli dambe. haddaba sidaan hore usoo sheegnay, hoolkan oo lahaa hal albaab ayaa waxaa keentay inay dadku u cararaan halkaa dhinac oo ku qasabtay dadku inay isdulfulfuulaan, badisayna dhaawaca ama dhimashada ka dhici doonta hoolkaasayta. nasiib darrase maalinkan waxaa halkan ku naf waayay 41 qof oo isugu jira haween iyo carruur. inkastoo dadka badankood ka baxsadeen musiibadan, ayaa ilaa 90 qof dad gaaraya la xaqiijiyay inuu dhaawac ka soo gaaray musiibadan xoogga leh. kuleelka banaanka ka jiray maalinkan iyo qiiqa iyo dabka gaaska wata ayaa fududeeyay in muddo 3 daqiiqo ah ku naf waayeen intan oo qof. markay imaadeen waaxda caafimaadka ayaa waxay sheegayaan in dadka qaarkood ay u gubteen si loo aqoonsani karin oo la kala garani waayay. waxay gaartay dadku in lagu kala garto baaritaan ilkaha oo lagu xaqiijiyay qofba qofku ahaa. nasiib darro dadka dhaawaca ku noqday halkaas oo isbitaalada loola cararay ayaa ku naf waayay cisbitaaladii la geeyay, taasoo tirada dhimasho kor u qaaday oo ka dhigtay 57 qof. faldambiyeedkan ayaa ka dhigaya midkii ugu weynaa ama ugu xumo ee soo mara taariikhda Kuwait. waxaa xusid mudan in caruuska iyo caruusadaba waxba ku gaareen halkaas, sababtoo maysan jooginba hoolka xilliga dibka dhacayay. isla markiiba waxaa baaritaan dheer sameeyay waaxda dambi baarista, kuwaasoo markii hore u arkayay in dabku keenay korontooyin iyo kuleelka maalinkaa jiray, balse baaritaan qoto dheer oo ay sameeyeen ayay ku caddeeyeen in Nasra ka dambeysay dembiga. Nasra ayaa ugu dambeyn qiratay dembiga iyo iyadu inay geysatay dabkaas. wuxuu Nasra keeskeeda socday muddo dheer iyadoo marba weji uu yeelanayo, balse ugu dambeyn ayaa Nasra lagu xukumay dil toogasho ah oo lagu caddeeyay inay ka dambeysay dilka 57 qof oo dumar iyo carruur isugu jira, iyo dhaawaca ay u geysatay 74 qof oo kale. Nasra ayaa noqonaysa qofka labaad oo dumar ah oo dil toogasho loogu xukumo waddanka Kuwait. xukunkeeda kadib ayaa waxaa la mamnuucay hoolalka halka albaab leh oo caado u ahaan jirtay waddanka badankiisa. inkastoo dadka Kuwaitida ah ay yihiin dad iska afgaaban, faldambiyeedyadana ku yar yihiin, ayaa tani waxay ku noqotay mid cabsi ama dareen badan ku reebta. 2017 bishii koowaad 25 ayaa Nasra dambiga lagu qaaday, waxayna ka mid ahayd 7 qof oo maalinka la dili doono. inta badan waxaa la ogolaan jiray in wargeysku ka soo qayb galo, balse maalinkan ayaa nasiib darro loo diiday. sababtana waxaa lagu sheegay in qof ka mid ah boqortooyada waddankaas uu ku jiray dadka la dili doono, balse Nasra teeda ayaa markii dambe wargeyska loo ogolaaday iyadoo looga dhigayo inay arkaan dadkii ay ka dishay dadka. haddaba kiiskan ku dhisna arxan darrada, miseerka iyo bini'aadanimo xumada ayaan intaa ku soo afjaraynaa. intaan kanoo kale dib ugu kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo. fadlan ha iloobin inaad subscribe saarto si aad ula socoto barnaamijyada noocan oo kale ah.